علي بن أبي طالب لح قضبه وكسو كوبي سيدا wax loo bartaa wuxuu yiri lixdaas qodob qofkii la timaada waxay doontay baran kartaa lixdaas marka la timaado wax kasta baran kartaa wuxuu yiri qodobka ugu horeeyo waa wax loo yaqaan adhakaa waa aqliga aqli muxuu yahay marka aqliga waxa waaye maxaa taqaanaa ma aqligu waxa waaye baahi intee la egaad qabtaa oo kugu kalifayso inaad wax ogaato inaad daba cararto wax cusub inaad ogaato annagana maxaan ognahay Soomaali ahaan maadaama aynu ahayn dad reer guuraa ah qofka markuu reer guuraa yahay qofka markuu iska fadhiyo qofka reer guuraaga uu ka aqli badnaana sababta horu socdo yeelna baahiya wado markaad adiga marka la horay baahi aad u leedahay dadku waa ka aqli badnaanay oo hadda adiga habeen kasto waxa laga yaabaa liid tag iyo mansoor tag iyo garow dhex wareeg iyo maalin kasto habeen kasta baydhabo waxa laga yaabaa maalinkii 3 saacadood inay qaxwo iyo riwaayad kaaga baxday sheekii Facebook daqiiqada qofka bini'aadamka wuxuu akhri karaa leeri hal page macnaheedu marka waxay tahay 3 saacadood min daqiiqada uu akhrido 180 page akhri kartaa oo loola jeedo yani habeen kasta hal buug aad akhri kartaa maadaday rabtaa haato habeen kasta marka hal buug akhrido bishi 30 buug akhrido sanadka 360 buug akhrisay cilmiga beeraad fahmi kartaa dhaqaaliyaad fahmi kartaa dawladnimada fahmi kartaa personality qofka soo u fikiraa fahmi kartaa sidee ummad wax looga dhaadhacsiyaa fahmi kartaa sidee adiga lamaana iyo gabar ama oday aad u heshaa wax kasta aad fahmi kartaa sirta noloshaad ku fahmi kartaa marka waxa la rabaa cali muxuu ka bilaabay wuxuu yiri shayga ugu horeeyo waa aqliga qofku inuu aqli leeyahay marka aqli leedahay wax kasta baran kartaa qodobka labaad wuxuu ka dhigay dadaalka waxa la yiraahdo oo qofku ma dadaali kara ilaa koow inay baahi hayso oo hadaysan baahi ku hayn ma dadaalaysid baahi kaliya marka dadaalka wax uu keenaydaa waa may maxaa kale u baahan tahay laba inay awoodna leedahay oo xoog u jiro baahi iyo xoog markay isbeersadaan ma kugu filan tahay inaad dadaasho may halkii shay ugu muhiimsanaa ka dhiman oo ah inay adab leedahay qof anshax la'aata oo hadaadan anshax iyo markii dal ciidan loo dhisay shayga ugu badan oo laga dhisay maxay tahay discipline anshaxa laga dhisaa marka anshaxa laga dhiso dadaalka cirka tagaa marka Ali bin Abi Talib qodobka labaad ee qofka inuu wax barto u baahan yahay inuu helo ay tahay wuxuu yiri waa dadaalka qodobka saddexaad wuxuu yiri waa dulqaadka waa sabarka oo qofku ma sabri kara sida loo sabro horta ma fahansantahay inaad sabarta daarto si u sabri kartaa horta hore ma sabar ma ku yimaado ilaa koow inaad fahanto mooyo waa maxay sabar iyo maxaa kugu kalifaa inaad sabarto markaad sabarka ujeedadiisa aad fahanto waa sabri kartaa waxa laga yaabaa inaad fahansanin sababta aad sabr leed fura labaad haysataa oo ku fahansiinayso sabarka oo ah xasilooni iyo degnaasho inaad isdejiso bal oo yara sugi karto tusaale qof ku caayay qof markuu ku caayay hadii aad ogtahay qofka inaad ka aarsa karto garaaci karto waa u sabreedaa hadaadan aqoon waxaad ku sameey karto ma sabri kartid maxaad sameynay marka xogaa yar bal sug xasilooni la imaw marka cabaari isdejiso qofka caaytama adiga wasbedelay marka isbedesho waxa gaar inaad sabarto maxaa la yiraahdaa inaad fahanto marka fahantan waxa ku gaarsiinay inaad sabarto marka Ali bin Abi Talib wuxuu yiri qodobka saddexaad ee qofka wax ku baran karo waa inuu sabar leeyahay qodobka afraad wuxuu yiri albalca waxa waa jeenanka jiscinka cuntada oo caafimaadka waxa ku barateen tamarta ugu badan ee qofka bini aadamka oo hela ama oxygen ha aata ama dareeraha aata ama cunaha aata inteeda ugu badan maskaxda isticmaasho inta kala jirka wax yar isticmaalaan waa goorma waa marka dawladda meela iska boodboodayso markay timaado inaad wax akhrido ama wax barato ama aad xal ka fikirto maskaxda laba shaqeynaysa motorka zaid u shaqeynaya marka motorka zaid u shaqeeyo maxay tahay shidaal badan oo gudmaayo shidaalka haduu marka hore kugu yaraa marka jidka bartankiisa oo gaari kaaga dama waxa taa la mid ah markaad imtixaan galayso iyo marka buug akhrinaydo wax yaro gaaladan waxay dhahan snack Soomaalidana faajo anu faajo ku dhihi maayo baaqul soor iyo hilib ka soo buuxso marka laba page akhridaba 14 malgac afka ku rid wala ninka ugu aqoonta badan aad noqonaydaa hadaad caloosh buuxido yani motorka shidaal badan ku shubaysaa active ahaanida marka calina wuxuu ka dhigay qodobka afraad waa balcu yiri waa inuu qofka jeenan heesta wax cunaa qodobka shanaad wuxuu yiri waa irshaad ustaad oo uu ka wado macallin ma tahmaane macallin hanuuniya maxay tahay waa macallin wax ku barayo uu ku jecel yahay laxa uu ku haaya
wuxuu rabaa ciil oo qabo oo dalkiisa iyo dhulmihiisa iyo wixiisa in la hormariyo soo rabo ubadkiisa ku arko iyo wax ku barooyaa guushaada guushiisa laakiin markuu macallinka wax ku baraayo bisha markay dhamaataan mushaar macallinimo qaadana ina 10 fahantinada fahmin ka marka ma aha ustaad oo murshid maahan marka cali wuxuu qodobka shanaad ka dhigay macallin hanuuni ahoo jacayl iyo laxa u qaba ardayga kan ugu dambeeya qodobka ugu dambeeyna wuxuu yiri wadul zaman waa waqti waa inuu waqti jiraa oo crash course may dhahaan intensive course waxa lagu sheegaa Soomaaliya hadda dugsiga sarnaama 2 sano looga baxoyaa dugsiga marka 2 sano uga baxda jaamacadda Bobsi master aan haystaa ku leeyahay waxa la tusay 20 jir PhD haysto 20 jir PhD haysto waa marka waa fake waa isqaldoyna sababta fiir dadkan chefka leeyahay cuntada kariyo cuntada ugu qaalisan ee hadda maqaayadaha laga cuno waa cuntada loo yaqaan slowly cooked oo ay ka wadaan cunto lagu kariyo dab nuxuusa hilib ari ama hilib geel waa badagay hilib ari ama malaay hadda soo majilcan malaay la karinayo 6 maalmood macnaha dabka lagu karayo dad gacanta saarta xataa ku gubamaysid nuxuus sira sababta ma taqaana markii dabka uu daciif yahay laakiin muddo dheer la siiyaa waxa waa bisaylkii shaah u soo qaado tusaale ahaan marka jalmad inta dabka saarta dhuxush iyo qoryihi iyo dhan hulciso biyo hore ka karkaraan sokorta ku darto shaahaasna ma laha laakiin midkay baraadka dhahaan carabta waxaan ku arki jiray dhuxul yar nuxuusa 3-4 saacadood lagu karkarina tartiib maxaa loola jeedaa si wax macaan ay uga soo baxaan Ali bin Abi Talib wuxuu yiri saad wax u barataa waqti si oo waqti aad u baahan tahay wax la boobsiyo la marta caraabiyay waxa waxna ku baramaysid waana ku wareeray marka si aan suuqaas oo dabo wixna hal eraan kaaga dhigo waxa waaye aqliga bani aadamku wuxuu keenaa qofku inuu dadaalo qofka markuu dadaalana wuxuu helaa aqliga wuxuu ku sii dadaal marka dadaasho sabaraad helay oo aad sabree oo qofka markuu dadaalo sabar uu helaa sabar markuu helana maxay ku gaarsiinaydaa waad dhargeeda oo balcadi waay oo qofka markuu ahlu sabar yahay uu iska dharagsan yahay orod kuma jiraayo markaad iska dharagtood nasanta oo habi aad tahane maxaad noqonaydaa qof wax la bari karo ardaynima ama qof macallin oo dadka wax baro waxa aad baranaydo ugu muhiimsan muxuu yahay waqtigu muxuu yahay waqtiga rabbigu ku abuuray waqtiga na sameeyay oo noloshaada waqtiga ku beesgareeyay marka waxaan rabaa inaan kugu soo gabagabeeyo adiga iyo noolahan aad la nooshahay ama Soomaali ahaado ama khayr Soomaali ahaado ama xayawaan ahaado noolahan oo dhan iyo adigaba rabbiga noloshaada abuuray adiga waxa laga rabaa sida aad u noolaa lahayd